بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد تاريخه ولحدي رمضان كن أفر بغلا فرتني كو تاريخ هجري تاريخ ميلادي قنوا سقالي لواتنك بشا أبريل لوذا كوني لواتنك ومال الأربعاء waxaan insha Allah taala isku daynaa in aan bishan Ramadaan aan juzka Quraanka u dambeeyo juz amma inaan tafsiirkiisa iyo laqmadiisa aan insha Allah taala dadka u soo gudbino ama Ramadaanka aan ku qaadano ujeedadu waxa weeye bishan Ramadaan waa bishii Quraanka Kariimka ah iyadii Quraanku way isleeyihiin shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran marka bishani maadaama bishii Quraanka ay tahay Quraanka mudnaan khaas in la siiyo akhriskiisa fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa intaba maadaama marka aanan ka wada gaari kareynin munaasab waxaan u aragnay inay munaasab tahay u yaraan hal juska Quraanka u dambeeya inaan insha Allah taala tafsiirkiisa qaadano juskan ugu dambeeya waxaan u dooranay waa juska inta badan dadku wada yaqaanaan waa mid labaad juskan Quraanka u dambeeya juz amma wuxuu ka hadlaa oo boqolkiiba 90 u badan yahay mabaadiida waaweyn ee iimaanka oo asaasiyaadka diinta ayuu ka hadlaa wuxuu ka hadlayaa oo bini aadamka baraya nolol tan ka dambaysa inay jirto aakhiro iyo maalinkan ka dambeeya adduunyada ka dambaysa inay jirto waa xaqiiqo cid kale oo ka warrami kartaa ayna jirin wuxuu ka hadlayaan juskani inta badan suuradihiisu waxa kale oo ay aad u dul istaagayaan mabda la yiraahdo Ilaahay tabaaraka wa taala ni'amkiisa iyo barwaaqada uu adoomadiisa siiyay kala duwan si Ilaahay adoomadiisa isu baro Ilaahayna ay nicmooyinkiisa ugu aqoonsadaan waxay sidoo kale to juskan juz amma mabaadida uu aad uga hadlo kamida adduunkani sida uu ku dhamaan doono iyo markuu dhamaanayo isbedelada dhacaya ee waaweyn iyo siday u eegyihiin adduunkani seebu noqon doona dhulkani buurahani badahan say noqon doonaan makhluuqaadkani say noqon doonaan muxuu ahaayay xaalad weyn oo adduunka ku soo socota isbedelka weyn ee dhici doona see u yaala see u eegyahay ay aad uga hadlaan waana macluumaad runtii meel kale aadan ka heli kareynin waxay ka hadlaan oo aad u dul istaagi doonaan sidoo kale muxuu ahaayay dadka labada qaybood ay u qaybsamaan dadka wanaagsan jidka wanaagsan haya iyo abaalgudkay leeyihiin adduunka iyo aakhiraba maxay Ilaahay agtiisa ku leeyihiin dadka se dhanka kale Ilaahay dariiqiisa garan maray tabaaraka wa taala gaalada iyo munaafiqiinta iyo wixii jidkooda qaaday maxay abaal leeyihiin xageysa ku dambeyn doonaan mabaadi waaweyn oo sidaas oo kala ah ayuu aad ay suuradahan uga hadlaan juskan wuxuuna u badan yihiin quraankii soo degay intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka soo hijroonin Makka marxaladaas oo ahayd marxalada mabaadida waaweyn ee diinta la taasiilinayay gaalada lagu la dagaalamayay laga dhaadhicinayay yaani wax weeyaan waqtigaas marka soo degaysay dagaalka yaani waa dagaalka xujada iyo bayaanka dagaalka gacantu waa dambeeyay maadaama ay sidaas tahay marka maantana ay yaani mabaadida waaweyn tash badan lagu furay oo muxuu ahaay in badan oo dadka kamidana ay jahli badan kaga sugan yihiin way mudan tahay runtii in muxuu ahaay la dul istaago
waxaynu ku bilaabaynaa marka suuradda suuratu naba innagana aanu naqaano Soomaalida suuratu amma aan dhahno ayaynu ku bilaabaynaa waa suura makkiya cinda aljamiic marxaladii hore ee xilligii uu nabigu Makka joogay intuu soo hijroonin quraanka soo degay inay ka mid tahay ayaa la isla ogol yahay waata marka suuradii oo inoo bilaabatay الله تبارك وتعالى وحلي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون درب السورة وحيكو بلاوتي مبدئي هدا إنو كهليني وينا أها محو أهاي آخر حساب تنكيدا محاد عدونا نولش الضنبي oo ay gaaladu inkirsanaayeen oo lagu kari laa ayay durba suuradu ku bilaabatay wuxuu yiri Allah tabaaraka wa taala amma maxay xaqiisa ayay yatasaaluna isweydiinayaan yani waa an iyo ma oo istifaamiyo isgalay marka alifta damba la gooyaa amma maxay xaqiisa ama shayga xaqiisa ayay yatasaaluna isweydiinayaan su'aashaas waxay u imaanaysaa shayga isweydiinayaan baa shay weyn ah yani isluubka luqada carabiga ah saa ku yidhi zaydun ma zayd su'aada marka sidaas oo kale u imaanayso shayga wax weyn ah shay weyn bay yani wax iska weydiinayaan hadana waa laga hadlo waxa la yiri ani nabai warkii xaqiisa weyna ani nabai warkii xaqiisa yay isweydiinayaan al-azimi ee weyna warka weyn ee ay wax iska weydiinayaan culimada qaar waxay leeyihiin waa quraanka kariimka waa waxyiga oo qul huwa naba'un 'aziimun waa ka suuratu saad ilaahi ku yiri tabaaraka wa taala laakiin waxa ka fiican in la yiraahdo waxay wax iska weydiinayaan ee halkan lagaga hadlayo waa bacthiga waa isa soo saarida iyo isa soo nooleynta iyo nolosha dambe oo ay inkirsanaayeen qaarna ay ka shakisnaayeen ani naba'i warkii xaqiisa wax iska weydiinayaan al-'aziimi ee weyna laana waxa isbedelka adduunka ku dhici doona burburka soo nooleynta dambe xisaabteeda abaamlarinta dhacaysa waa war weyn war sahlan ma aha warka weyn bay wax iska weydiinayaan alladii kaasoo warkaasoo hum iyagu fiihi dhaxdiisa مختلفون كوا اسكو خلافسن ايهين way isku diidanayeen ayaga dhaxdooda isku diidana hadii raay la qabto fuqahaa mufassiriinta qaar kood marayaan wax weeye ayaga waxay u qaybsanayeen gaalada laftoodu qaarna way inkirsanaayeen isla soo saarida iyo nolosha dambe maba jirtay taagnaayeen qaarna way ka shakisnaayeen iyaga dhaxdooda marka khilaafku ka jiray ama waxa la leeyahay waxa isku khilaafsan isa soo saaridii nolosha dambe isku diidani waa gaaladii oo diidan iyo muuminiintii oo sugaya labadaaba waa la yiri midaad tidhaahdaba waa la isku khilaafsan yahay oo ama gaal iyo muslim baa isku diidan ama gaalada dhexdoodii baa isku diidanaayo qaar ka shakisan iyo qaar diidan oo inkirsan bay isu dhaxyaaleen marka warka weyn ay isku khilaafsan yihiin bay isweydiinayaan الله تبارك وتعالى مركا وحو كدنبيسي هنجبات كودي يا هنجبات كلا هكجوجين مرنكا يا خلافكا يا اسويدينتا wax la isweydiiyay ma aha kala hakajoogeen sayaclamuuna way ogaan doonaan markay arrimuhu cadaadaan beenintooda iyo inkiraada inkirayaan ciribteeda dambiye waxa ka dhasha way ogaan doonaan thumma markaa kadib كلا هكجوجين سيعلمون هدنا way ogaan doonaan sayaclamuunada dambe matii hore xoojinaysa mise macna ziyaada abay wadataa waxa fiican in laga dhigo macna taasiisa inay macna cusub wadato markasta oo ay aakhira u sii dhawaadaanba markay dhintaan oo qabriga galaan xaqaa'iq bay ogaanayaan sayaclamuuna way ogaan doonaan markay qabriga ka gudbaan oo qiyaamada tagaana حقائق way ogaan doonaan markasto ay sii durkaan ila ay cadaabka ka galaan mar walba waxba u sii cadaanay sayaclamuuna thumma kalla
sayaclamuuna waxaanay inkirsan yihiin ay diidan yihiin ee lagu kari la'yahay gadaal bay uga cadaan doontaa xaqiiqadeedana way dul istaagi doonaan sidaasaa laga wadaa maadaama marka aynu nidhi aayadahani sida xooga badani waxay ka hadlayaan waxa ay ka murmayaan ay ka doodayaan isku haystaan wax iska weydiinayaan waa isa soo saaridda iyo nolosha dambe maadaama ay tahay Allah tabaaraka wa tacaala siyaabo kala gedisan buu quraanka kariimka mabda'aasi u qeexa mar Allah tabaaraka wa tacaala waxa la muujiyaa awoodiisa iyo sida ay ugu fududahay marka la fiiriyo awoodiisu intay la eg tahay siday ugu fududahay inuu dib u soo nooleeyo adoomada mar waxa la muujinayaa Allah tabaaraka wa tacaala cilmigiisu siduu waasac u yahay oo xataa jirkoodu hadduu carradu cunto inaysan ilaahay cilmigiisa waxba ka hoos baxaynin mar waxaa la muujinayaa tusaalayaal baa la siinayaa wax dhintay oo la soo nooleeyey baa la tusayaa dhulkii oo abaaraystay oo ingegay oo nabaad guuray oo biyo yimaadeen oo roobka yimid oo noolaaday baa loogu miisaalinayaa siyaabo kala gedisan buu marka quraanku mabda'aas dadka uga qanciyaa in la soo saari doono nolol dambe ay jirto tani marka waxa weeye aayadahan soo socdaay maadaama ay soo nooleynta dambe shaki geliyeen ama inkireen ayaa waxa la leeyahay oo loo muujinayaa bini aadan dhintay oo la soo nooleeyay marka loo fiiriyo waxyaalaha ilaahay abuuray ee waaweyn ee arkaysaan ee idin muuqda bini aadan dhintay oo dib loo soo nooleeyay wax weyn ma aha tiba marka la tusaaleynaya ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa iyo intay la eg tahay iyo yaa tusaalayaal la siinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala uu koonka dhigay si ay ugu qancaan in ilaahay awooda uu leeyahay oo soo nooleyn karo bini aadamka dhimashada kadib tiba marka la guda galay Allah wuxuu tabaaraka wa tacaala alam naj'al soomana yeelin al-ardha dhulki soomana ka yeelin mihadan gogol soomana ka dhigin dhulka makhluuq aad u weyn waaye makhluuqa saa u weyn ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ka dhigay mid sidii gogol oo kale u yaala oo aynu ku dul soconno oo inoo layliyan oo aan ina diidaynin oo ku xaajo gudanayno oo ku dul soconayno oo aan ku dul seexanayno oo aan beeranayno oo aan ku dul dhisanayno oo saan doonno yeelayno waa gogasha laynoo fidiyay waay yaa fidiyay makhluuqa inta leeg yaa saa u fidiyay alam naj'al miyana yeelin al-ardha dhulki mihadan gogol fidsan miyana ka dhigin wal jibala burihina soomana ka dhigin awtaadan dhakawyo awtaadu waa jamcu watad watadka waxa la yiraahdaa teendhada marka la dhisayo yaani baalaha yaryarkee dhulka la geliyo ama bir ha ahaadeen ama qoryo la soo gooyo ha noqdeen oo dhulka loo geliyo kadibna xarkaheeda lagu qabto oo hayaa la yiraahdaa ama si kale hadaad u dhigtaba haraga marka la fidinayo yaani waxa weeye dhinacyaha ayaa waxa laga dhajiyaa yaani dhakawyo kaasa la yiraahdaa waxa laga wadaa buuruhu dhulka waxay u yihiin sidii dhakawyadaasi haya oo kale oo dhulka waxay ka ilaalinayaan inuu dheeliyo dhulku inuu dhaqdhaqaaqo dhulku inuu bini aadamka la dheeliyo ama idraab ama isbaraambar inuu sameeyo ayay ka ilaalinayaan waa ka ilaahay inoo sheegay tabaaraka wa tacaala li alla tamida bikum wa buurahaasi hadayna dhulka korkiisa ku fadhiyin dhulka laguma dul noolaadeen marka wal jibaala buurihiina soomaanan ka yeelin awtaadan dhakawyo dhulka haya oo u diidaya dhulku inuu dheeliyo wa khalaqnaakum soomana idin abuurin aadamihi wa azwaajan idinkoo noocyo ah yaani wax way idinkoo lab iyo dhadig ah oo in lab iyo dhadig la idinka dhigo idinkoo hadana isku jinsi ah si aad isugu raaxaysataan tarankii bini aadamkii jiritaankiisina u suuroobo ilaahay nicmatiisa waa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مركا النوعية واحد لب يددك حدنا يعني إسلام نول وإسكن نول وإسكن ترمية وذا ترمية سومانا إذن كدقون واحد وجعلنا سومانا كي لنومكم هرددين صباتا
mid dhaqdhaqaaqa goyn waay yani hurdadu ruuxa waxay jaraysaa dhaqdhaqaaqii iyo socodkii iyo shaqadii bay goynaysaa si uu u nasto si uu raaxaysto yani wax waa isbedel jidhka bini aadamka ku dhacay ruuxiba siduu u ordahayo u shaqaynayo ayuu hal mar muxuu ay xaalad kala galaya xaaladaasi marka wax weeye shaqadii iyo daalkii iyo rafaadkii iyo wixii buu ka nasanaya haddayna hurdadu jiri lahayn bini aadamku ma jireen laana wuxuu baabi'i lahaa sidaas daraaddeed hurdadaasi dhaqdhaqaaqiyo shaqadii bay jaraysaa waana nasiinay keenaysaa ruuxu inuu nasto oo raaxaysto kadibna uu yani waxa weeye soo kaco isagoo oo nashaadsan isagoo oo awood leh isagoo firfircoon isagoo waxqabad yani wax qabanaya macnaha wajacalnaa nawmakum subaatan iyadana waa yani wax weeye wax cajiiba waay wajacalnaa soomaanaa yeelin alleyla habeenkii libaasan astur soomaanaa ka yeelin sidii aan iftiin ugu jirno ayaa habeenku imaanaya markaasuu wax kasta kala asturaya waa ku qarinaya yani wax weeyaan sidii mara aad huwatay oo kale ku asturtay buu habeenkii adduunka u daboolaya u asturaya wajacalnaa soomaanaa yeelin annahaara maalintii macaashan aydaa macaash mid oo muxuu ahaayey aada macaashtaan waqti aada ceeshtaan ilaahay baa jadwalkaa dejiyey adduunkao dhan baana jadwalkaa ku socda kiisa gaalka ilaahay diidan iyo ka ogolba waxay ku socdaan jadwalka ilaahay dejiyey maalintii waa iftiin waa la foofayaa waa la shaqo tegayaa iftiinkaasaa lagu shaqaysanayaa habeenkii markuu soo galo kulli guryaha la wada gelayaa waa la seexanayaa waa la nasanayaa yani halka saasaa ilaahay u qaybiyey tabaaraka watacaala qaybinta noocaasa ilaahay adduunka uu jadwalkaa u dejiyey waa jadwal lagu wada socdo awood inaga sarraysaa samaysay wax bini aadan iyo makhluuq intaasoo yani uu adduunka dhan u samayn karo halkaa jadwal oo iftiin lagu shaqaysto iyo mugdi lagu seexdo haddana maca daalika marka la shaqaynayo qoraxda iyo iftiinkeeda ayaa jidhka nashaad gelinaysa baynamaa habeenkii mugdiga iyo jidhku inuu nasto ayaa munaasabad isla leh oo ruux xataa maalintii hadduu seexan rabo waa inuu meesha mugdi ka yara dhigto sidaas weeyaan wajacalnaa soomaanaa yeelan annahaara maalintii macaashan mid yani wax waa aada ceeshtaan mid aad shaqaysataan ood fooftaan ood shaqo tagtaan waa wabanaynaa soomaanaa dhisin fowqakum korkiina 7 shidaadan oo adag korkaaga haddaad fiirisana 7 samo oo isa saaran oo dhismahoodu aad u adag yahay muxkam yahoo la sugay oo cajab badan baa korkaagana ka muuqda allah baa dhisay tabaaraka wa tacaala wajacalnaa soomaanaa yeelin siraajan wajacalnaa bimacnaa khalaqnaa waytani wajacalnaa waxaanu abuurnay ama soomaanaan abuurin siraajan faynuus wahaajan oo aad u ifaysa waa qoraxdii wey yani waxa weeye sidii faynuustoo kale ayay dadka u iftiiminaysaa masaalixdoodii si ay u gaadhaan say danahooda ugu hanuunaan ayay u iftiiminaysaa dhulka korkiisa iyo meelihii ay ku noolaayeen wahaaj weeyo iftiinkeedu aad buu u daran yahay way walacwalaclaynaysaa iftiinka qoraxda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u sameeyey marka laga tago inay dadkii u iftiiminayso shaqooyinkii waxay qabsan lahaayeen ay u iftiiminayso ku shaqogalayaan marka laga tago dhanka kale nooluhu qoraxda kama maarmo qoraxda iyo iftiinkeedu nooluhu kama maarmo manaaficdiisii oo dhan baa ku jirta jirkii bini aadamka u baahan oo fiitamiinaadka jirka qaar ka mid qoraxdu ka imaanaya yani beerihii iyo dalagii qoraxdii bay u baahan yihiin midhihii inay bislaadaan qoraxdii bay u baahan yihiin yani wax way dhulkan iyo koonkani qorax la'aan ma jiri karayo marka iftiin kaliya ma ahe noloshiiba ay qayb ka tahay macna wa anzalna waxaan soo dejinay buu alla yidhi min almucsiraati daruuraha xaggooda waxaan ka soo dejinay maa'an biyo thajaajan oo si istaba jooga u shubmaya mucsiraadka waxaa la yidhaahdaa daruurahana waa lagu fasiraa dabaylahana waa lagu fasiraa laakiin sida ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyo rajaxayaan mucsiraadka daruuraha ka dhig waxaana la yidhahdaa asalka mucsirka waxa la yidhaahdaa waa shayga yani waxa way dhacaanku ku jiro oo la maroojiyo maroojinta waaye waa shay marooqsamaya ama miirmaya ama markii la tuujiyo tuujismayo wixii dhacaanay ku jiray uu ka soo baxayo waa cisaarka saas la yiraahdaa mucsirka saas way macna ama muctasirka marka
daruuruhu waad aragtay iyadoo daruurtu weyn oo biyihii ku jiraan oo buuxaan ayay hal mar biyihii sii daynaysaa way miirmaysaa marka mucsiraadka daruuraha laga wadaa sidaasaana loogu magacaabay biyo waxay sii daynayaan marka shubmaya oo isdaba jooga allah tabaaraka wa tacaala baa ka soo dejiyey biyahaasina waa biyaha roobka waay biyaha roobkuna in alla inta nafleydoo dhan inta alla nafley oo dhan baa ku nool saas daradeed haddii dhowr sano ilaahay roobka joojiyo dhulka laguma noolaan karayo waxaan u soo dejinnay buu alley biyahaasi daruuraha waxaan uga soo dejinnay linukhrija si aanu ugu bixinno bihi biyaha sababtooda xabban badar waa yani waxa weeye quudka beeraha ah ee la kaydsadee kaydka geli karaya sida maalan badarka masagada muxuu ahay galeyda qamandida bariiska xabbi baa la yidhaahdaa kayd bay galaan wanabaatan nabaadna si aan ugu soo saarno nabaadkana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha cagaarka lagu cuno isagoo cagaaran ayaa la cunayaa ama xoolihii baa cunaya ama bini aadamkii baa cunaya wajannaatin baanu ku soo saarnay yani aseendooyin alfaafan oo kulansanoo isku dhex jira jannaadka waxa la yidhahdaa waa beeraha geedahoodu waaweyn yihiin alfaafkana waxa la yidhahdaa waa geediyo intay kulmeen laamahoodii ay isdhaafeen oo isgaleen alfaafan isku duubmeen ama ay isdhexgaleen ama isku marmeen taana waanu ku soo saarnay waay markay biyuhu samada ka yimaadaan beertii caadiga way soo saarayaan daaqii iyo dalagii way soo saarayaan waxaa lagu soo saarayaa geedaha waaweyn iyo beeraha waaweyn aseendooyinkii baa soo baxaya oo intay madaxa isla galaan laamahoodu isdhaafayaan intaasoo dhan soomaanaan samaynin buu alla leeyahay intaasoo dhan soomaanaan samaynin jawaabtu waa haa ma cid kalaa sheeganaysa maya mayadaa saa iska dhigtay oo saa iska dhigi karaysa maya ma cid kalaa sidaa ka dhigtay maya allah keligii baa ka dhigay allaha marka intaa sameeyey oo makhluuqaadka waaweyn iyo cajaa'ibtaasi sameeyey in markaad dhimataan kadib uu idin soo nooleeyo maxay ku tahay soo wax aad u fudud ma ah marka dalaa'il waay adiladaas waaweyn baa la siiyey oo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisu yani inaynan dhammaad lahayn oo nihaayo lahayn wax walbana uu kari karayo ayaa tusaalayaal la siiyey bal tan fiiriya bal dhulkii fiiriya bal samadii fiiriya bal muxuu ahay daruurtan iyo biyahan fiiriya bal beerahan soo baxaya fiiriya haddaad aragtaan waxaan la nooleynaya arka wabilmunaasaba yani waxa weeye marka aadamaha la soo nooleynayo sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam marka dib loo soo nooleynayo nebigu wuxuu inoo sheegay sal alla alay wasalam roob baa di'i doona roobkaasi markuu do-o biyihii dhulkay gelayaan markay dhulka galaanna yani waxa weeye jidhkii bini aadamku carrada ku baaba'ay ayay biyahaasi gaadhayaan biyahaasi marka meeshay gaadhaanba dadkii ku jiray ayay dib u soo noolaanaya dib bay u soo baxayaan sida biyaha roobkuba dhulka markay gaadhaan wax uga soo saaraan bini aadamkuna inuu dhulka dib uga soo noqdo ka soo baxo nolol cusub soo noolaado roob baa ka horeyn doona di'i doona sida xadiiska nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam inta markii la sheegay oo loo cadeeyay ilaahay inuu awood u leeyahay inuu dib u soo nooleeyo ayaa su'aal baa marka iimaanaysa haddii laysa soo nooleynayo waa goorma maxaa loo dibdhigay ya tii baa laga jawaabay marka inna yawma alfasli maalinta kala saaridda maalinteedu kala xukumidda addoommada maalintaasi la kala saaraya la kala xukumayaay kaana wuxuu ahaaday maalinkaasi miiqaatan mid lagu waqti qabtay waqtiga ballanta la qabtay iyo waqtiga loo qabtay maalinkaasi waa maalintaa la iskala saarayo maalinkaasi waqti bay marka leedahay saas way macna maalinka ilaahay waqti buu ugu talagalay waqtigaasaana lagu mudeeyey wamaa nuakhiruhu ila liajalin macduud muddo tirsan oo la tirinayo socota ayaa loo dibdhigayaa waqti baa ilaahay ugu talagalay ilaahayna waqtiguu wax qorsheeyey ee qoondeeyey kama soo hormariyo marka inna yawma alfasli kala bixinta maalinteeda khalaa'iqda la kala saari doono kaana wuxuu ahaaday miiqaatan mid lagu waqti qabtay yowma maalin ayaa lagu waqti qabtay yunfakhu la afuufi doono fi suuri buunka la afuufi doono fata'tuuna markaasaad imaanaysaan
afwaajan idinkoo koox iyo guuta guuta idinkoo guuta guuta ama kooxa ama gruub ayaad imaan doontaan waay maalinkaas isaga suurka la afuufo suurku waa makhluuq ilaahay abuuray oo buun ah malag baa u xil saaran Israafiil la yiraahdo uu diyaarsan yahay laba goorba uu afuufi adduunkan marka la gabagabeynayo oo wixii saharay la afjarayo la khatimayo uu afuufi kadibna wixii noolaa oo dhan baaba'ayaan adduunkani waa isku dhaxyaacaya mar labaadna uu afuufiyo marka dib loo soo noqonayo la soo nooleynayana wuu afuufaya labadaas nafkhaba way jiraan waa mid xadiidka Abu Hurayra nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay labada afuufisood ee buunka la afuufayo 40 baa u dhaxaysa markaasay weydiiyeen Abu Hurayra xadiiska wariyay ma 40 bariba waan diiday buu ma 40 bilood ba waan diiday buu ma 40 sana waan diiday buu bimaana wax way ma garanayo 40 u baa lagu yiri markay 40 kaasi dhamaadaan 40 ku waxyiin Allahu a'lam ayaa markaasi Allah tabaaraka wa taala samada wuxuu ka soo dajinayaa biyo ka keenaya biyahaas ay marka dadkii soo dhalanayaan oo dhulka ka soo dhalanayaan sida dalaga iyo daaqoba u soo baxo kale tayib shay ma jiro bini aadamku markuu dhulka galo baabao wax kasta waa la baabaya dhulka cunay jirkiisa dhulka cunay macalafihiisa ma xaragiisa kulli laakiin waxa soo haray sida nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam lafta la yiraahdo dabanicista lafta dabanicista la yiraahdo oo lafta dhabarka meesha ay ku dhamaatay u dambaysa taasa soo hadhaysa carradu ma cunayso ilaahay baa u diiday meeshaasay oolaysaa kadibna iyadaas bini aadamka marka dambe ayaa hadana laga abuuri doona dib la isugu soo celin doona macna xadiidkaas uu tilmaamay طيب marka yawma maalin yunfaqu al-afufa fi as-suri fata'tuna markasad imaanaysan afwaajan idinkoo kooxa yani gruuba ummad kasta iyo nabigeedii rasuulkeedii la socdo ama meehe cid walbo isku mabda ahayd isku aqeeda ahayd isku amal ahayd ba wala israacinaya munaafiqiintii gaaladii sii darayd madaxdoodii kuwii dhexdhexaadka ahaa kuwii sii hooseeyay kuwii muuminiinta u fiicna kuwii dhexda ahaa yani wax way muxuu ahay naf walba ciday la amal ahayd baa la raacinaya ama meehe nabi walbiyo dadkiisii baa la isla keenay sidaas way macna wa futihat waxa la furaya as-samaa'u samadii baa la furay فكانت مركاسا waxay noqotay abwaaban irido waa isbedelka koonka ku dhacay waa samada la furfuraya way saysataa hadda meel laga gala male hal meel oo loogu talagalo malaa'ig waardiye taagan tahay mooy hadda la iskama gali karo laakiin xilligaasi samadu way jilci irida ka furmi doona فكانت abwaaban iriday marka noqonaysa iridahaasi waxa loogu talagalay malaa'igta ka soo daadanaysa malaa'igta baa ka soo galaysa ila malaa'igtu korbay jirtaa سيد الله القرآن كل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ملائكة ومركة كسو دقيسة وإيمانيسة معنا وحلو صعداي أدوما دي إن لك لسارو هي محكمة دي والله صعدا والسيرة وحل سعودية الجبال بوره فكانت وحي نقطي بوره سرابا دلنتات بورهاني لولك كوركي سسارين حوليس كاد أركتين ليك مراحل bay mari doonaan mar waa la fududeyn sida cudbiga oo kale noqonayaan marna waa la shiidaya marka sidii bus oo kale noqonayaan marna waa la bitinaya markaas waxay muxuu ahay u soconayaan sidii yani wax weey daruur socoto kale noqonayaan marna wax aan jirin oo kale noqonayaan waxaad moodaysaa shay jiro kale aad moodaysaa laakiin waa dhalanteed marka ugu dambeysana waa la baabiinaya wayasalunaka 'anil jibaal ضرورها كويدين وحي كويدين ينبورها فقل ينصفها ربي إلهي بابي إني ولا الشيدة ولا بابي إني دولك مركا وحو نقونيا ميل هوسنا ماله ميل تاغنا ماله دولك دن ولا السمية معنا مركا تاسا لغا هدلي وسيرت لسعسية الجبال بوره فكانت مركا وحي نقطي سرابا دلنتيد او كله دان دبنغال ama دلنتيد wax aad moodayso shay xaqiiqa laakiin aan waxba ahayn waa in jahannama intaasi markay dhacdo adduunka isbedelkaasi ku dhaco xagee la aadayaa waay laba loo qayb sameeyaa laba hooy baa jira mid saddexaad ma jiro hooy waa jahannama iyo naarta hooyna waa jannada iyo ilaahay naxariistiisu meesha taalo way labadii baa marka la sheegay in jahannama naarta jahannama kaanat waxay ahaatay mirsaadan mid
عمل يعني عمل قلب بدن عمل قلب كوحل إذا أمر رب قلب شيء أديكون أوجين أو كتلقشنين meel kuugu gabanaya oo meel kuugu sii jira ama cadow ah ama wax ku yeelaya ayaa la yiraahdaa marka jahannama dadkeediiba waxay u sugaysaa si degdeg ah mirsaadku wasaas way diyaarsan tahay wayna sugaysaa dadkeedii way sabri laada dadkeedii bay sugaysaa kaanad waxay ahaatay mirsaadkaasi waxa kale culimadu yiraahdaan maadaama jahannama la mari doono marka jannada loo socdo jahannama la sii naarta la sii dulmari maadaama la dulmarayo halkaas waxay ku sugaysaa marka dadkii iyada loogu talagalay gudbi maayaan marka meeshaas ay ku qabsanaysaa macna litaaqina hal ay usugnaatay jahannama kuwa qooqay ma'aaban bay ahaatay mirsaadka laga bedelaya ma'aaban bay ahaatay meel loo noqdo litaaqina hal ay usugnaatay kuwa qooqay jahannama yaa galaya nin kibray ruux qooqay ruux isla weynaaday ruux ilaahay xuquuqdiisa ka kibray ruux khalqiga iska weynaysiiyay kibiraani qooqay ayaa gali doona jahannamo iyada iska leh ma'aaban meel loo noqday ahaatayo kuwaasi u laabtaan laabithiina xaalay ku nagaanayaan fiihaa jahannamo dhexdeeda axqaaban sanado badan oo istaba yaala axqaabku waa jamcu xuqubkana waxa la yiraahdaa aimada salafka iyo mufassiriinta salafka qaarba waxbay ku sheegaan mudday ku sheegaan 80 sano 70 kun oo sano waxbay sheegaan laakiin waxa weeye waa sanado istaba yaala oo qayb markay dhamaatana qaybtii kale hadana bilaabanayso oo aan dhamaad lahayn saasay marka isku waafaqayaan aayadaha kale quraanka yiri naarta way ku waarayaan ma aha intay muddo ku jiraan inay ka baxayaan laabithiina xaalay ku nagaanayaan fiiha jahannama dhexdeeda axqaaban sanado isdaba yaala ama waayo iyo mudooyin isdaba yaala oo isdaba socda la yaduquna dhadhamin maayaan fiiha jahannama dhexdeeda bardan wax qabow ah wala sharaban ya abitan toona ama bardan wax qabow oo dhan baa soo galay wax la cabo qabow ah hawo qabow ah muxuu ahay hurdo qabow ah hurdadana mufassiriinta qaar baa ku fasira wax qabow dhadhamin maayaan طبعا qabowga midka nafciga laga hadlaya laakiin qabow baraf oo cadaab ah isagoo qabownimadiisa cadaabku ah isagu zamhariir way helayaan oo marna kulayl baa lagu cadaabi marna qabow daran ee hadda midan la leeyahay la yaduquna fiha bardan qabowgaas waxa laga wadaa qabow nafci la heli maayaan wala sharaban abitan heli maayaan illa hamiman biyakulul mooye waghasaaqan iyo carunka biyad kulkoodu meeshii ugu dambeeyay gaadhay ayaa la waraabinaya markay naarta ku btaan oo oomaan oo hana la waraabiyo yiraahdaan ayaa biyo kulul baa la waraabinaya waxa kale oo la waraabinaya ghasaaqa waxa la yiraahdaa waa carunka malaxda iyo dhacaanka iyo qashinka markii dabku gubo ka miirmaya jirkooda waxa la ururinaya markaas la waraabinaya abitaankoodu kaas casiir looga dhigay jazaan wala abal mariyay juzu wala abal mariyay jazaan abal marin wifaaqan oo waafaqsan li a'malihim wa abal marintaasi oo in jahannama sida loogu cadaabaa lama dulminin amalkii ay la yimaadeen iyo aqeedadoodii oo bay waafaqsan tahay oo ay ku aadan tahay oo ay munaasib ku tahay maxay yeelay innahum iyagu kaanu waxay ahaayeen adduunka markay joogeen la yarjuuna kuwa aan rajaynin ba ahaayeen xisaaban wa xisaaba mayna rajayn jirin mayna ku tala gashanayn kamana ayna baqaynin in la iska daba imaan doono oo la isla xisaabtami doono oo ilaahay hortiisa iyo maxkamad la tagi doono qorshaha ugu ma jirin wakadabuu way beeniyeen biaayatina aayadaha nagana way beeniyeen kidaaban ay takdiiban beenin wixii aayado u yimid aayaadkan kawniga ah ee ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa xikmadiisa ku tusayana beeniye waxmayna ku qaadanin aayaadkii tanziilga ilaahay soo dajiyay ee rususha u soo dhiibayna way ku gacan saydeen waa meesha wax ka qaadan lahaayeen tayib wa kullu shay'in wa ahsayna waan koobnay kullu shay'in wax kasta ahsaynaahu waan koobnay kitaaban qoraal baan ku koobnay meesha iyagu ayna xisaab ku tala gashanayn iyaga waa la xisaabtamay waa la daba socday malaa'ig baa u xil saarnayd wax alla wixii ka soo fula afkooda iyo adankooda waa la qorayay
wixii oo qoran diiwaankiisii baa la soo hordhigayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba baa leeyahay adeer diiwaankaaga akhriso isaga maanta kugu filan cid kaleeto xisaabiya adaaba isugu filan markaad akhrisato wa kulla shay'in wa ahsaynaahu waan koobnay kulla shay'in shay kasta ahsaynaahu waan koobnay de kulla shay'in shay kasta ahsaynaahu waan koobnay kitaaban qoraal baan ku koobnay ama maktuuban isagoo qoran yani malaa'igtaas wax walba qoraysay hayaraatu habadnaatay ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa fadhuqu dadamiya marka waxa lagu leeyahay cadaabki markay galaan oo ay jahannama galaan oo ay yani wax weey ay cadaabkaasi dadamiyaan ayaa hadana damiirka laga dilayaa waxa la leeyahay fadhuqu dadamiya cadaabkaas dadamiya falan naziidakum idin kordhin mayno illa cadaban cadaab mooyee waa meeshii ugu dambeysay waa mufassiriinta waxa laga sheegay aayada quraanka yani ahlu naarka ugu daran inay tanta inta hore dhan rajay qabaan ama uun waxoogaa la idinka fududeeyaa la khafiifiyaa maalmo waxoogaa la idinka yaradaaya laakiin markii la yidhi cadaabkani waa uun sii karaar qaadanaya maalinta ka dambe mar ka dambayso waa sii siyaadaya saas way macnaha mar walbo jidhkoodu gubto jidh baa loogu bedelaya mar walbo naartu ay waxoogaa yara damto oo yara khafiifto waa la hulcinaya sidaasay ku jirayaan fadhuqu dadamiya falan naziidakum idin kordhin mayno illa cadaaban cadaab mooye wax kale idin kordhin mayno mar walba cadaabku waa idinku sii siyaadaya dadamiya la leeyahay sidaas waa abaalkoodii waay maxay ilaahay allahoodii abuurtay ayaa lagu kari waayay taasi waa kooxdii waa munaafiqiintii waa gaaladii waa mujrimiintii waa wixii adduunkan la kari waayay waa wixii ilaahay wuxuu sheegay waxyigiisii iyo rusushiisii aayaadkii waxba ku qaadan waay waa wixii madaxaydaga iskibriyay ee qooqay way halkaas ku dambeynaya waa la qooq jabinaya waa la kibir jabinaya qoladii kala ay noo laaban marka dadkii ilaahay ateecay akhyaartii jidka ilaahay maray rabbigood aqoonsaday daacadiisa iyo waajibaadkiisa gutay xumaantii wixii xumaa ka tagay ilaahay ka amar qaatay waa kuwa inna lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa waxa u sugnaaday mafaazan kuwa ilaahay ka baqa waxa u sugnaaday mafaazan makaanu liibaan ama liibaan baa u sugnaatay mutanazahna waa la yiraahdaa dalxiis yani liibaan bay leeyihiin ama meelay ku liibaanaan xadaa'iqa baa u sugnaaday beero waaweyn aseendooyin beero waaweyn bay leeyihiin wa acnaaban iyo cinabyaal xadaa'iqda inta badan waxaa loo isticmaalaa geedaha timirta ah geedaha waaweyn ayaa loo isticmaalaa wa acnaaban iyo cinabyaal bay leeyihiin wa kawaaciba taasi waxa weeyaan waa liibaantii laga hadlahay waa beerahaas iyo cinabkaas iyo dhankii markay shahwadooda gudanayaan iyadana waa laga hadlo waxa wa kawaacibana way leeyihiin kawaaciba gabdhanaasa kuuskuusan atraaban oo isku da'aad ah kawaacibtu waa jamcu kaacib kaacibkana waxa la yiraahdaa gabadhu markay naasakeen tahay oo naasaheedu aysan muxuu ahaayay ay kuusan yihiin oo ina wali dhicin ayaa la yiraahdaa kaacib naahidna wala dhaha wa kawaaciba waa xurcinti waa yani dumarkii jannada waa atraaban oo hadana isku da'aad ah oo mid duqa iyo mid yar iyo mid laga da'weyn aan lahayn kulligood waa sameeyeen waa da'aad waa isku da'weyn wa ka'san baylihiin ama u sugnaaday koob khamra ah dihaaqan oo buuxa yani wax way dhanka waa faakihadii waa ilaa wax way waxna waa cuntada quutul yawmka daruuriga waa waxna waxyaala lagu faakihaysto waa khamradii waa khamradaasi ka'siga koobku markuu buuxa la yiraahdaa dihaaqana waa lagu sii adkeeyay koobku markuu macnaha ay wax ku jiraan baa la yiraahdaa dihaaqana waa markuu buuxa waa koob khamro buuxay leeyihiin khamradaasi jannada taalaay tan adduunyada way ka duwan tahay oo waxay kaga duwan tahay waa marka koobaad ma urayso tan adduunyadu way qarmoon tahay waa marka labaad maanka iyo maskaxda wax ma yeesho waa marka saddexaad way macaan tahay yani waa lagu faahfaahista fahmay leedahay طيب لا يسمعون ما مقليان فيها جنة دحيده لغوا هذا الحن او ساقط وباطل قيمه لهين مقل مايان ولا كذابا بين اسبينين ما مقليان تكذيب way macna yani wax weeyaan dhagahooda ayaa waxa laga ilaalinaya wixii la dhibsado dhan dhagtu waxay dhibsataa laga ilaalin ishu waxay dhibsataa laga ilaalin sanku wuxuu dhibsadaa laga ilaalin yani wax weey wax alla wixii yani jirkooda dhibsado dhan waa laga ilaalinaya marka maqli maayaan laqwigu waa hadalka cantara baqashka ee dhagta dhibaya in qiimaha lahayn kidaabkana waxa la yiraahdaa waa isbeenin yani beenaalata may adaa beenala been baad sheegtay waxaas maqli maayaan laana hadal fiican ma waxaas marka dhagahooda laga ilaalinaya waxay la mid tahay
آية كلا الله تبارك وتعالى ويري لا لغو فيها ولا تأثيم هذا القيمة الدراء وقيمة لها إن شاء الله دحيدا معها تأثيم إن بين ليسكو حكمنا معهن بين ليس يعني بينالتها إن بين ليسكو حكمنا إن شاء الله دحيدا معهن جزاء ولا أبال مري جزاء جوز ولا أبال مري جزاء أبال مرين ومن ربك حق ربك كأهات عطاء سيسمو أيالسي حسابا أو كفلا أو بدن أو كفلا أبال كاس إلهي حق يسوك هذا سيسمو حالسي كفلا ديق إلهي أو كفلا ومركي لسي الرالي يكون نقونيان كوقن عيان أو أينن وحكى لأسيبه هناك مركي جنة لقيه وحي لسيو أيا ربي وحوليه هي أهل الجنة وهي ميدين سيادية مركاسين أو ربي محمد نو زيادنا ونقد من مع نو دمن ونو سياد مركا وحوي وحكو في لمبالسي رب السماوات من ربك سيبدل كته جزاء من ربك رب السماوات كهذا أبال كاسو من رب السماوات سماوات كرب ولا حقي سكهذا والأرض يدلك دلك يسمدن الله إسكالها حقي أيو أبال كاس كهذا إيو ما بينهما سمد يدلك وحي أدحيما الرحمن إن حريص تبنا الله أدومدي سأقول حريص بدن سمد يدلك وحي أدحينا إسكالها أيا أبال كابحيي لا يملكون مهنا كران منه الله حقيس خطابا حال حق الله كهذا خطابا هذا المهنا كران ما ملكين كران مركي آخر الله تقو الضومض ووضا بقيان ولا وذا هيبيسانيا إلهي بقى لقى هيبيسانيا عيدنا ما هاد لكرتو عيد إلهي انتي سوتاكتو هذا الكل ديران كرتا ما جرتو لا يملكون منه خطابا وحي لم يتهيو كله آيضا بدنو إلهي تبارك وتعالى أوليه هي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا معناه نف هل كرتماني كاسي ما جرتو كل نوال بوافورا وانا بقيا لا يملكون مهنا كران منه الله حقي سأما منه حال حق الله خطابا هذا وحضلوا إلهي اللوتشي دي عد ملكين كرتاي ما جرتو أهل السماوات كي يا أهل الأرض كي يا كل والا وضا بقيا اللهم ضد بالله أقولان يا إني هلان والشفاعان وضدك مؤمنين تاوى لكن يغلفتوا إذن واحد يوم مال أيين عدنا ملكين كرين هذل يقوم استاغي الروح ملك الجبريل أما بني آدم كي لبضوا ولو فسرها والملائكة ملائكتي كلتنا استاغي صفا أيقوا صفصفا استاغي لا يتكلمون لما هليان مالين كاسي ملائكتي الصفف بيو استاغي ملك الجبريل نوى استاغي طيب أما روح ذا بني آدم كي كردك بني آدم كي نوى إيمانيان ملائكتي نوى إيماني سيضو صفصفا لا يتكلمون مهل لكران مخلوقات كيوا إلا من عدمويه أذين إذمي له إساق الرحمن الله نحريس تبضني وأفصحي وأقول هذا إنو هلو وقال هدنا يري صوابا هذا التوصين يري حالة قوضا عدنا مهل لكرتو إلهي بأن لقوضا هيبسنا يا بقيا حتى وحكى الإسكار في الرسول إلهي صدر صدي ما هل كران ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل رسول إلهي أولي مر له إدمية هم بهل كريس ولي بالرسول إن بدن وعد دارنا يعني عيد مرك هذا الكل يرن كرتو زو استاجي كرتا ما جرتو إلا عيد إلهي أو إدمي كدبنا هذا التوصين يري مويه هل كعود المدى قاركود وحيليين وشفاعة دي بتلمامة يا الشفاعة العظمى وخلائق ذو مركي بنك قيامة اللي يسوي مادو oo ay rafaadaan muddo joogan anbiyadii bay u tagayaan nabi walba waa cudur daaranaya marka u dambeeya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaas waxa leeyahay ilaahay noogu tag noogala hadal hana la kala dareeriyo hana la kala xukumo markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tagaya ana leeyahay maanta arshiga hoostiisa ku sujuudaya markaas Allah wuxuu ku leeyahay maxamedow soo toos wajiga kor u soo qaad weydii waxaad rabto shafaac waa laga aqbali markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam shafaacada weyn buu shafaacaya marka isagaasa loo idmaya hadal wanaagsanna waa ku hadlaya waa ra'yi culimada qaarkood ay qabaan qaarna waxay leeyihiin ma ahe illa man adina lahu arrahman wa qala sawaban wa dadka shafaacayo dhan shafaacada nabiga ay ka tahay laakiin muuminiintu way shafaacayaan laakiin gormay shafaacayaan kowa in ilaahay uu idmo idan la'aan cidina isaga soo istaagi karto wadaad xirtiisa iska kaxaysan kara ma jiro waalid ilmihiisa iska kaxaysan kara ma jiro nabi umadiisa intuu iska yimaado janno ku dareerin kara ma jiro cid soo istaagi karto hadli karta ma jirto illa inuu Allah u idmo
markaana hadal sawaaba uu yidhaahda mooye halkaa marka haddii laga dhigo shafaacada guud laga dhigo waqaala sawaaban waxay noqonaysaa adduunka intuu joogayna hadal saxa yidhi oo waxay marka noqonaysaa ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ahlu tawxiid buu markaa noqonaya waa adduunkii kusoo ashahaatay ahlu tawxiid ahaa dalika kaasi alyowmu maalinkii waa alxaqu ee xaqa ahaa maalinkaa laga warramay ee saa looga soo sheekayey waa maalinka dhabta ee xaqa ah faman shaaa ruuxii doono marka ittakhada wuu samaysan ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa ma'aaban meeluu u noqdo haddaa la joogaa ruux walba meeshii uu tegi lahaa ha diyaarsado meeshuu u noqon lahaa ha diyaarsado maxaa lagu diyaarsadaa iimaan iyo camal saalixa meesha tegi lahayd iyo gurigaagii diyaarso haddaad diyaarsan weyda bannaankaa taallaa waa saas macnaha meel xun baad aadaysaa waa innaa annagu andarnaakum waan idiin dignay cadaaban cadaab baan idinka dignay qariiban oo dhow inuu dhow yahay bimacnaa wuu soo socdaa waa wixii soo socdana waa dhow yahay waa imaanaya waa yowma maalin cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday yanduru uu fiirinayo almar'u ruuxii maa qadamad wixii ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood labada gacmood baa laga cabiri laakiin isagaa laga wada ruux walba wuxuu hormarsaday yuu maalinkaa fiirinayaa waynu halmaannay hadda oo maxaynu samaynay wax badan waynu halmaansannahay laakiin isagoo qoran baa layna hor keenaya wawajaduu maa camiluu xaadiran waay wax alla wixii aad samaysay oo dhan hortaadaa lasoo dhigaya markii hortaada lasoo dhiga kadib wayaquulu wuxuu dhahayaa alkaafiru gaalkii yaa laytanii shallaytadayde hoogayo baaye kuntu maan ahaado ama maxaan u ahaan waaye turaaban caro laba macnoba way noqon adduunkii maxaan caro u noqon waayo bini aadan lala xisaabtamo maxaa iga dhigay caradaa uun iska taaleen xisaab lahayneen cadaab lahaynee ilaahay abuuray maxaan uga mid noqon waay ama waxaa laga wadaa waxaa dhici karaysa inuu ka wado aakharo markuu tago riwaayaad baa jira aathaar baa jirta mufasiriinta qaarkood soo aruuriyaano markii ilaahay uu bahaa'imta iyo xoolaha iyo xayawaanaadka kale iyo marka loo kala qisaaso oo la kala xugmo oo dhibka iyo dulmiga isu geysteen loo kala gooyo ayaa markaa waxaa la dhahayaa caro noqda markaasay caro noqonayaan gaalkii markuu arko marka xayawaanaadkii iyo xoolihii oo caro noqday iyo wuxuu leeyahay war anigana maanta yaa caro iga dhiga laana waxa weeye maalinkaa inuu caro noqdo oo yani waxa weeye uu yani fakado si uun inuu ku fakado buu dabaninaya macnaha wayaquulu wuxuu leeyahay alkaafiru gaalkii yaa laytanii shallaytadayde kuntu maan ahaado turaaban caro si aan xisaabtan iyo cadaabkan iyo xaaladan adag uga fakado hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم